waxaan soo gaarsiinay baaqii ama komunikeygii ka soo baxay shirkii muddada dheer bisha iyo jarjarka ah ka socday magaalada Baydhabo oo aniguna aan laba joor oo markaan hadda aan joogaa ugu dambeysaan soo booqday. waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo dadka reer Koonfur Galbeed guud ahaan, gaar ahaan dadka magaalada Baydhabo degan oo muujiyey si xilkasnimo ah, muujiyey dulqaad aad iyo aad u badan, muujiyey maxaan ku yiraahdaa in ay u hiilinayaan wax walbana ay u hurayaan nabadda iyo deganaanshiyaha deegaanka iyo dowladnimada. waxaan sidoo kale aan aad iyo aad ayadana aan ugu mahadcelinayaa dalladaha la sheegay hadda halkan laga jeediyey ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta oo ayagana intii tanaasul la suubiya intii ugu badnayd ayaguna dhinacooda ka sameeyey oo runtii muxuu ahaa dul qaatay, aqbalay in hore loo socdo wixii shalayna laga daawoobo. waxaan sidoo kale iyadana aan u mahadcelinayaa maamulka oo hogaaminayo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed iyo xukuumaddiisa oo ayaguna muujiyeen isbedello waaweyn oo u danaynayo dadkan in deegaankan laga sameeyo tanaasulaadna laga muujiyo. waxaan rabaa sidoo kale si gaar ah inaan ugu mahadceliyo odayaasha dhaqanka maxaan ku yiraahdaa beelaha ku abtirsada Koonfur Galbeed oo ayaguna aan ka daalin ka caajizin wixii dhacayna in la dhayo, la booga dhayo, la daaweeyo dadkii walaalaha ahay ee dhibaatadu ay kala gaartay. wixii u baahan in la xalliyo, la cawil celiyana soo dhexgalay dadkii dejiyey, intii dhaawac ahayd la daaweeyey, intii maxaan ku yiraahdaa wax tirsanaysana qof walba gacanta madaxa laga saaray raalli ah oo la yiri. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay diyaar u tahay ayaduna dhinaceeda ay ka ballan qaaday in wixii kaalin ay uga aadan arrimaha dib u heshiisiinta, arrimaha isu soo dhaweynta dadka iyo qalbi xaarista iyo arrimaha wixii lagu ballamay sida loogu ballamay inay u dhaqan galaan hubinteeda iyo xaqiijinteeda. intaas ayaa dowladda federaalkan ay ballan qaaday. waxaan rabaa dadka Koonfur Galbeed hadday yihiin maamul, hadday yihiin mucaarad, hadday yihiin maxaan ku odayaal dhaqan, hadday yihiin shacab, intaba runtii bisayl siyaasadeed iyo dulqaad iyo tanaasul aad iyo aad u ballaaran ayay muujiyeen. dhibaata hadday dhacdo in la xalliyo dhibaatadii dhacday iyo in laga ballamo berri dhibaatadaas oo kale inaanay soo noqon waaye waxa tallaabooyinka in la qaada ah waana laga ballamay. dowladda federaalka ahna waxay mas-uuliyadda qaadatay wixii lagu ballamay xaqiijintooda inay joogto oo ay hubiso. qofkii wixii lagu ballamay ka leexanayana inay gacanta ka qabato oo ay dhahdo wixii lagu ballamay sidaan ma ahayn ee joog. nabadaan timida awgeed waxaan aaminsannahay wax badan oo horumar ah iyo muxuu ahay booga dhayad badan iyo qalbi xaarid badan iyo isu soo noqosho badan inay dhici doonto haddii alla yiraahdo. in la ilaaliyo nabadda, in la ilaaliyo kalsoonida, in la ilaaliyo qalbiga dadka in la ilaaliyo waayo dardaaranka guud aan ku dardaarmayno. aad iyo aad ayaa ididiiraduna u fiican tahay. waxaa kaloo aan rabaa ayadana aad iyo aad ugu faraxsanaya rabaan inaan ka mahadceliyo dadka Koonfur Galbeed sida ay uga go-an tahay in khawaarijta lala dagaalamo, sida ay uga go-an tahay in maxaan ku yiraahdaa deegaanada dalka Soomaaliya oo dhanna la xoreeyo, si gaarana deegaankan weliba ay xoog iyo caqli wixii ay hayaan oo dhan ay isugu geeyaan si loo xoroobo. arrintaas arrin ididiila leh bilowgii maxaan ku yiraahdaa dib u xoreynta deegaanada ah waaye. waa ku hambalyaynaynaa, waa ku bogaadinaynaa ayaga iyo dowladda federaalka oo isla socdana oo iskaashanayana muxuu ahay deegaankaana ilaahay idinkiis mar dhow khawaarijta waa laga weyn doonaa haddii alla yiraahdo. mar kale hambalyo guud ahaan dadka Koonfur Galbeed oo nooc walbala iyo martaba kasta leh waan u hambalyaynaynaa, waana bogaadinaynaa walaaltinimada ay muujiyeen. aad iyo aad